asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahey soo dhawaada, walaashiin waaye inikooyo. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago ciid isku diyaarintii weeyaan. challengegaan kasoo qaybgal haddii aad tahay youtube ley. haddaad ahayn youtube ley, walaashii ugu xiran tahay adi naftirkaaga picture iisoo dir insha allah saad u samaystay macmacaankaaga. okay, macmacaankaaga kula wadaagayo waa macmacaan oo fudud waaye, oo ujeedaa waxyaalo diyaar ah waaye. wuxuu ka samaysayaa buskud, lows iyo condensed milk aan isku darayaa, and then waa kuskuuseynaa. noocyo badan oo kale nooc aan ka sameyneynaa, waa arki doontiin video ka arki doontiin. so ka faa'iideyso. waa wax easy ah waaye, waa waxyaalaha ku yaalo waaye guriga aad ku samaysanaysaa. just haddaad allergy ku tahay lowska, ama haddii aad siinaysid reer allergy ku ah lowska. lowskan waa cashew, pictureka waa intusi cashew lows waaye. dadka badankood allergy kuma aha, laakiinse inaad u sheegtaa fiican lows inuu ku jiro. mashiinkaanito aan isticmaalayo waxa waaye food processka waaye. haddaada haysanin bacda qaadanaysa, waa turtumaysaa, ama kaliya mooyaha ayaad ku crash garaynaysaa. waa ujeedaa waan ka badiyey, mar labaadaan ku celinaya, mar saddexaadaan ku celinaya, ilaa maaragtay budo fiican uu noqdo. condensed milkana adigu qiyaasta adiga iska leh, intaa rabtaa samayn kartaa. aniga wax badan aan rabaa inaan sameeyo oo si ii noqdo waxyaalo kale nooc ah. video ka arki doontiin inta nooc uu kusoo baxo. waxaa kaloo u baahan tahay extrada waxa waaye chocolateka. melting chocolate aa jirto. chocolatedu waa kala duwan yihiin. chocolateka caadiga ah oo la cuno, temperatureka waxaa laga yaabaa inuu ka adkaado, waxaa laga yaabaa inaan lagu talagelin. so mid loogu talagalaa jirto baking chocolate aa la dhahaa. okay, waa ujeediin qiyaasaan hadda ku sameynayo. mar labaad aan ku dardarayaa. xoogaa hadduu caanaha kaaga bato, that's why u baahan tahay inaad kala reebatid oo tartiib isu qastid ilaa qiyaas dhegdheg wanaagsan, oo aanan too much ahayn, too soft, aan ahayn too hard. ma arkino. markaa qasaysiba tartiib u qaso, ha iska wada qasaarin wax dhan. hadda ujeedaa waan kala reebtay. markaa hadda aan taabto waxaan dhahay way jilicsan tahay. so intaan kan kale condensed milk ku dari lahaa, asagiaan ku celinayaa, ku adkeenayaa. okay, because dhegdhegiisaa badan, waa ujeedaa. asagiin baan ku celinayaa. food processkana mashiinkaneeto haddaa isoo weydiisayd, dhowr jeer waan kusoo daray. canadian tirekan kasoo gatay mar hore, long time ago. xaawiriisi halka ay caawinayso, gacmo dheerey gacmaheeda t-shirtay qabtay oo gacmaheeda qaawan yihiin. marka waa la weynaado qoftii, waa la is asturaya. hadda waxaa lagu leeyahay waxaas igu sameyn, waxaas iga soo dayin. so saa ujeediin any style u samaysanaysaa, noocyo kala duwan, ama dhudhub u samayso, ama geesgees u samayso. adigu ay nooc oo kusoo baxaya oo style ah. okay, haddaa rabtid dhexda wax ka gelisay xataa waa ka gelin kartaa. kuskuus waa kuskuusaysaa. just you adiga kaa qalalin. soo ujeedaa inaan waxaan ka ilaalinaya inuu iga qalalo. hadduu kaa qalalo ma qoyn kartaa mar labaad, probably badhar ama wax yaroo saliida gacantaada aad ku qoysa, maaragtay aad ku marmarin kartaa. so chocolateka waa idii sheegay, melting chocolate aa la dhahaa. chocolatekaasa soo gatay, kaasaan marka ku isticmaalay. waxa waaye markaa meltgaraynaysa chocolateka, microwaveka anin ku meltgareeyey. dadka qaarkood waxay isticmaalaan wax la dhaho double boiling, waxa waaye biyaa karkarinaysaa. baaquli oo biyaha la kor saari karo digsigaas, inaad isku dhex dirto. digsiga dabka, chocolateka dabka lama saari karo. haddaad dabka saarto uu kaa karkarayaa. so double boiler sameynaysa waxa la dhaho, ama laba dable camal no, biyihii karkaraayo digsi kaleeto korka ka kori karo. biyaha inay taabtaana ma aha digsiga, qiiqaaseta keliya ayaa meltgaraynaya. okay, so adiga styleka jeceshahay walaashi waxay isku dayaysaa inay stylish noqdo. style kana nooc sameeyaa rabaa, laakiin waa ii suurtagal weysay. but you know waxay tahayba, noocay tahayba. haddaa haystay geedaha lagu jarjaro, buskudyada lagu jarjaro, dan waa ku samayn kartaa. you know ani hadda waa ijidaa mintiya isticmaalaya. xaawiriisa dhinaca kale iga caawinayso, oo marba nooca u sameynaynaa. so buskudyo kale nooc ay u noqdaan. cookies, you know, buskud iyo lows laga sameeyey waaye. but adigu noocyo, geedka waxaan kasoo gatay dollar storeka. haddaa arkaysiin noocyadu wato, carabaha geedkooda camal waaye, laakiin I don't know, ma ii shaqeynayo si kastoo intaa yeelay. so waa caqliyaystay, bacaan soo qabsaday. bacdiyaan geliyey, aan kula sameeyey styleka isuu u sameeyo design. dhexda waxaan ka geliya umalaynaya markaanayto lows, hal lows aan dhexda ka gelinayaa. si waxaan soo qabsaday walnut maaha, almond. loosyada magacyo badan ay leeyihiin, walnut, almond, pistachio. anyways loosyada waa kala badan yihiin. war noocyo kala noocaan ku leeyahay.
anyways saa ujeedaan videoga hopefully inuu ku dhiirigeliyo fikrado badan ka heshid challenge-gaaneeto unique oo ka socdo kasoo qayb gal haddii ay youtube lay tahay sameey haddii aadan ahayn youtube layna oo walaasheeda ugu xiran aad tahayna naftirkaaga waa ku challenge gareeyey sameey kasoo dhexbax okay haddaa rabta inaad la soo wadaagtid picture waxay u soo diri kartaa snapchat facebook messenger instagramka anywhere anyways waxaan iloobay inaan idin dhaho chocolate-ka multigrowgaayo wax ku darsan kartaa coconut oil ama regular oil oo flavor aan lahayn olive oil iyo haddaa ku darteed saliida oo leh taste waxaa laga yaabaa inuu buskud kasoo dhadhamo macmacaan kasoo dhadhamo buskudaan ku hayaa obviously waa buskud iyo lows waxaas ka samaysan yahay condensed milk like waa macmacaan okay waa macmacaan unique ah different ah as usual unique alaab oo unique ah weeyaan oo ka duwan buskudkeena caadiga ahaa aan u baranay ma fahmino marka challenge waaye walaashayda igu xiran waa ku challenge gareeyay haddaa youtube lay tahay video soo samey macmacaankaaga na tusi macmacaankaaga khatarta ah wax nooc kala ah wax different ah wax dhiirigelin ah buskudkeena caadiga hadduu yahayna shushmooyiga caadiga hadduu yahayna kackaci hadduu yahayna it doesn't matter just waxaana tusisaa styleka u samaysid inuu ka fudud yahay laga yaabaa anisaa u sameeyo ama qof kale u sameeyo so waa kala faa'iidaysanaynaa challenge is on you okay walaalahay aan youtube lay ahayn oo caadiga ku xiranna idinkana waa idin challenge gareeyay waxaan ku challenge gareeyay picture-ka quruxda badan iyo soo dir insha Allah facebooka messengerka igu soo diri kartaa waa unique waaye facebooka waxaan qabaa page sida hore kuma ihi but page aan qabaa oo unique Somali videos hadda ku qortid waa helaysaa isaga naftirkiisa okay ama unique hooyada caadiga ah iska rasto isoo raadi ila soo saaxiib insha Allah biidnillah waan facebook aan tagaya facebook laguma kala laakiin waan tagaya insha Allah social media wallahi dhimeer waaye soo ujeedin kala nooca isticmaalaya waa idin sheegay meelaha laga soo helo haddii aad weysid it's okay white and brown labadaasba quruxay ka dhigaan hadhow korkaan kaga daadaadin doonaa waa arki doontiin just waxaanet waa style just waa waxaa ku dari kartaa color food coloring chocolate-kaas caadiga cadka ah aad food coloring ku dari kartaa okay chocolate-ka caadiga oo loogu talagalay melting-ka ah waa idin sheegay microwave-ka haddaa gelisid waqti yaraa gelinaysaa 30 second aan gelinaysaa ha isticmaalin qaadada oo metalka ah okay isticmaal aniga hadda fiiri fargeetada waxaan ku isticmaalayaa inaan just kaga saarsaaro ma ogiye markii kow aan walaaqayay koodii hore idinka iloobay koodii hore aan sameynayay fargeedadan ku walaaqay wagaadkaaday waan yaabay maxaa dhacay ilaan fargeetada waa moogtahay bir waay soo birtii iyo wixii kululaa wuu qabo ma aqaani waay bad wuu qaboojiyey wixii waa adkaadeen soo waan la yaabay qaladkaasaan sameeyey koowaad soo ka baro qaladkaaseeto oo adiga markaa sameynaysid waxaa isticmaashaa ama wooden spoon oo qoriga ama plastikadaaseeto oo loogu talagalay in la isticmaalo soo ujeediin bacda yaristaan soo qabsaday oo waxaan rabaa inaan maaragtay hadda drizzle kor kaga daadaadsho aan rabaa qurux design inuu u noqdo challenge-gan haddaa kasoo qayb galaysid challenge waxaa leedahay eat challenge unique hashtag unique hashtaggaas haddaa ku qortid waxa waaye video walba aad ku dhajisidba markaa hashtaggaas taabto ayaa helaya videoyadaada insha Allah so waa lasii wadaagaya walaalaha kaleeto say maaragtay ay uga faa'iidaystaan videogaaga so haddaa youtube lay tahay waa kuu sheegay haddaad ahayn youtube layna waa kuu sheegay saan maaragtay idinka warsugaya oo ujeedin chocolate-kii kii chocolate-ka aan ku sameeyey xoogaa yar oo qaboobay like qabowg waxaan ka wadaa xoogaa yar qalalay and then waa ku korsameeyey it doesn't matter runtii intuu qoyin haddaa ku sabtaysid wuu isku sii qasmanaya laakiin qurux buu noqonayaa anyways ciid mubaarak ilaahay subxaana watacaala naga dhigo kuwii caafimaad ku gaara ciidan ilaahay naga dhigo kuwii salaadii soonka sadaqada laga aqbalaa marka saa ujeedaan aniga miiskayga saana u sharaxay miiska waa soo socdaa miiskii oo kala habeeyena yaa waan ila soo wadaagi doonaa videoga dambe insha Allah hadduu rabidmo kanise waa kana
saasaan u dhahay meel walba alaab walba noocyadeed taa ujeedaa challengiga maaragtay macmacaankaneeto ma yaraysto ay nooc waa idiin soo dhejin doonaa insha allah durabidmo soo ka faa'iidaysi wanaagsan subscribe hadday ugu cusub tahay haddii maaragtay aad tahay walaalihii hore iigu xirnaana waxaan idinka codsanayaa like aad iyo aad buu caawiyaa so like noo saar channelkan unique waaye videoganet videoga weyn waxaa weeyaan ciidda challengiga aan kala soo qayb galnay idin tusinayaana walaalaha maaragtay sa u samaysan kartay videoga so hashtagana ha ka iloobin okay khayr idin rajaynayaa wayno videoga dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu